داير عرس انت كوجي اسكين برو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تدقالي قد الهانتي ملك سدون كاك جوكتان واحد لين سود وهذا كنال كسبسكرايب نوصارا سوكل مقال كان لايك قرية وشير قرية اللي بدك أصحابتنا فكرية ركتو حالك قبطان مقالنا سوق لاركارير تيس لبركة ساعة وصلنا قرية. أوكي طبعا تويدوا عركتين والله واشي السوشيال ميديا تيوالي أهيد أي اسكو بدشي مركاتك والله لا واشا موقتي إيه طب كيف بحياة طب لو قبصدا هدي واشان كيلو دقيقة والله دقيقة تذكر لقى ما هرو ها غير كاك هروا هبار بسومالكم أحمدا هذا بقى إن عرفنا برا بشيء كتاجن نعمة جوكر الكعسة قيس كابتن أيوب يداهر على سو يتيم كاس إيه لبدا قبيلة لبا بيروتو مش على سكو بعصنا يا ودك سون تينته شكيدك كبير شري أي آدي برا بشيء أو هايستا runtii hablihii Soomaaliyeed koodii ugu sharafta badnaa ee ugu karaamada badnaa ayaa maanta waxa laga dhigayaa dad runtii jirkooda ka ganacsada dad xumaanta iyo wax walba oo fawaaxish u saabtuma hadaba ninka la yiraahdo Captain Ayub baan filayaa in la yiraahdo Captain buu sheegtaan ninkaasi laakiin dab loo ka abalay gobolada ka soo jeeday moogti maalmo askari buu hayo madaxtooyada Puntland ayuu adeegii waxa uu doon jiray baa la igu yiri ee waa la iguma oranay baraha bulshada ku jirtay mid nin yaqaan taariikhdiisa oo dhan haya ayaa soo hadlay wuxuu yiri adeeg iyo wixii loo baahdo yaani haday khudrad noqoto iyo hadii wax noocaas ah xitaa dhergu madaxweynaha ka dhadhamin jiray la igu yiri moogti hadaba intaas waa iga kaftan daahir cali xaaskiisa xalaasha ku qaba wiligiis social media lagu ma arag de ilma adeeraya laba nin oo saaxiib ah oo awal saaxiib ahaan jiray laakiin maanta dhibaato ay dhex martay maxaa dhexdooda xaasaskooda keenaya ninka weyn baan rabaa wuxuu ku hadlayo inaad ila dhageysataan waa 70 jir timihi cadaadeen haddana saaxiibkiisii hore ama ina Soomaaliyeed oo marwo oo la qabo leeyahay aniga ku dubeeya bal ilma adeerayaal aynu dhageysane ila dhageyso watana ninkan ay wada hadlayaan wuxuu leeyahay daahir cali soo intaan isku kiingeeyo aan iskiin baro wuxuu ku leeyahay xaaskiisa aniga dubeeya adiga iyo hooyadaayna adiga ku dubeeya ee xaaskiisa inta gurigiisa ugu tagay oo nu tagay ayaan soo dubeeyay wax walba ku soo sameeyay balaan idinku celiyo mala dhagahaad wax ka yar siiban malaynaya bal la dhageysa ma kaligeey baa mise waxba meesha jira ya bal wakaas dhagahayga ma aha ilma adeerayaalow horta ilaahay dambigeena ha dhaafo xumaan baan u dhex dabaalan anaga laftooda qaybaan u kanahay wax noocana sababtaan uga nahay baan ku sheegayaa waxaan dad runtii baraha bulshada ku jira barnaamijyo sameeya waligeed dad isku maanaan dhigin way jiraan dad aan wax kala tabanayno laakiin baraha bulshada isku maanaan soo fariisan laakiinse marxaladda maanta baraha bulshada ka taagan ee dumarka iyo maatida iyo hablaha lagaga sheekeynay leeyahay heblaayaan iga dubeeya heblaaye kale waa jugta culus heblaaye kale waa sidan heblaaye kale waa noocan iyo caynkan maalin walba way taagan tahay nicmo jokartii ku dhacday weyn ogeedeen iyadoo arrinkaasi ka hadlayso waa soo wada daawateen oo runtii baraha bulshada aad uga haysa sababta arrinkaasi ku galiftay iyo wax walba arrinkaasi iyo si walba u dhacayba way ka warantay soo meedaan gareen haddaba raggan waaweyn waxaan anigu tala u hayaa ilma adeerayaal idinku iscaaya oo isaflagaadeeya oo wax walba isku sameeya oo dharka isku la baxo feerinta duubataan gal la hadee ee sida ragga isku qabsado feer isku duubta ilma adeerayaal oo dumarka meesha ka saara dumarku waa maati dumarku waa sharaf bay leeyihiin waa hooyooyinkeen waa kuwa aynu qabnay marwooyinka inoo ahaa sharaf bay inaga mudan meel walba joogaan baba waxa mid fiican oo munaasiba boqolkiiba boqol aad iyo aad u muhiim ah in dumar aan meesha la soo gelin gabadhan oo marwo oo la qabo oo xalaal nin oo ubad u dhashay ilaahay baan kugu dhaarshay markaad leedahay aniga garaacay oo dubeeyo gurigeeda ku cunay ilaahay baan kugu dhaarshay ma sharaf ay ku tahay ay waliba qabiil dhan iyo reer dhan ku sacabtumayaan hayay qoslayaan waa runtii bababa war ilma adeerayaal goorma sidan loo waasho ya 70 jiro ciradii toosay sarwaxda waxay sheeganayaan in rag aqoon leeyihiin rag codkara yihiin rag
aftahanayn wallahi oo billahi oo talaahi bayna aftahanahay ma ninka gabadh dumar ah maanta loo korkorto inta bare bulsho soo fariistay gabadh marwa oo la qabo kula aniga sayaasaa ku sameeyay haddana aftahan sheeganaya afmishaar sheeganaya halkeebay dhaqanka Soomaaliyeed kaga jirta bal ii sheeg Ilaahay bay ku dhaashay bal idinkaan idin weydiiyay waxaad ii sheegtaan ninka 70 jirka inta bare bulsho soo fariistay le hiblaayo aniga garaacay wani naagti aniga sayaasaa ku sameeyay waday nin kale goorma aftahan noqday sheego ad waliba adigu sacabka oo tuma soo leedahay alla waa rutiyayo fari ilmaadeerayaalo maxumaanta aan la qasanaa waalidana aan anigu dhex dabaalana tay ilmaadeerayaa si kala duwan miisa runta isku sheegnay way isfahansanayna weey ilaahow muuqaalkan tablekiisa teetirkiisa waa ka soo waaraya waxaan doonaa ku soo qoraya bal waxaanu eegaynaa dadku xumaanta intay leeg ay jecel yihiin maalintu Ilaahay soo gooyay haddaan si wanaagsan uga hadalno oo aan niraarag sidaas lagama yaabo muuqaalkaasi in yani wax saameyn u yeesho laakiin haddii aan sidan doono u dhigno ilaa adeerayal anaga sidan doono u dhigi karna runta fiican dhanka xunna waan u dhigi karnaa dhan wanaagsan waan u dhigi karnaa laakiin Ilaahay baan subhanahu wa ta'ala ka cabsanaa waxa salayna wax dab yahay gelin bal waxaanu eegaynaa muuqaalkan imika aan daawanayo halku gaadho iyo dadka intee leega commentiye fikrada ka soo jawaabo haddii aan iraahdo heblayo oo isdubeeyay on timeline kana ka soo waala sawirka xaq hore yaala dadku saas ay soo haliilayaan hayay war qabtay warkii ariyar wuxuu soo dhigayay taleefankay wajaan waa la soo wacay warninka muu waashay war hayay war maanta si fiican baad u hadashay war waxaan ku wataa gariya gartaraba ilma adeerayaan haddii aan arrinka dhan wanaagsan loo dhigo oo dhankii fiicnaa wax loo eego oo dadkii waaweynaa waayeelka ay cumaamadu ka dhacday cumaamada loo celiyo la yiraahdo war ilma adeerayaal si xun baad wax hadaan arinku saamahay sidaan ka dhigana lagama yaabo in hadalkaaga la qaado laakiin haddii aad la qasato haddii aad waxay sameeyaan bal la sameeyso waxay noqonaysaa inaad aduna iyaga qayb ka tahay in adduunka fiiba loo ordaya iyo lacag in YouTube laga sameeyo nin maanta u aqli celiyo runta fiican ugu jira baraha bulshada nin kasta yoomkiisu xalaashanaya nin walbaba lacagtiisa yar ee YouTube-ka ka sameynayo ayuu rabaa inay u badato oo lacag fiican ay bisha ka sameeyo somad karan maalintu Ilaahay soo gooyay raggan xitaa le nicmo joker baan taageersanay oo le nicmo joker baan u hiilinay laga reebo odageeda inta kale oo fiiba raadinay runta aan isku sheegno nin qabiil ku taageeraya ma jiro hoostaas ka soo wada hadleen maanta maxaan program haynaa arka hadana dhanka u dhigna ka waran hadana dhanka kale u dhigna ka waran Ilaahay baa kugu dhaashay bal runta fiicante marka waxa fiican oo meesha taala oo aad iyo aad u muhiim ah in maadeerayaal runta fanta maaha qofkii bila aadanka walaalka oo kala inaad runta u sheegtaa waa shay muhiim ah runtuna waa biyo kama dhibcaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala hadal kasto afkaaga ka soo baxa malaa'ig ba garbahaaga saaran oo qoraysa bar hadalka afkaaga ka soo baxaya inaad wanaajisato oo aakhiradaada wanaajisato oo aad dadka sharaf iyo karaamo aad ugu dhex noolaato ama inaad xubin ka soo cad noqoto far ka soo cad noqoto la yiraahdo waa ka ay dhalay halkaas uu maraya waa ka kiis qashaka waa ka kii fataalka labada mid baa ku fiican baraha bulshada dadka ku jiraan waxa jecel yihiin ninka ay dhalaya ninka fataalka ninka aan waxba ka xishoon laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka ka xishoon waayay bila aadan wuxuu uga xishoonaya ayaaba iska yarba سمعنا كرن والإلما هذا الريال متشعر برنامج كأنه كل يرى ولا نعيمة شوكر ولا فرحية كبيرة ولا قال لذنو براه بالشدة هاي ستي أورا لها ولا لا جسمي كيف جود بواحد بلا الصومالية شرف ما إن جمودين وحنا آدي أمي هي مقف كستا أو ولا شيء شرفتي تشعل إنه يحبلها نكلم شرفته ده يكرم ده إلى عليه منين إن أنا نحوهن كأنا لا وانك هو يدي الشيء هو يدي ننتهي وانك إلما بتله وانك إلما هذا الرجال وانك إلما هذا وكورسان دون وكدال دون بركة دمر كوسيرك الليبيين نور الشيء إني بس أسأل إنه قصة نقطين إنه إلى عشان وحي حمانا إنه كإله لنا وحي هجردامي دلقاب كتشرنو وي لكن إنه ما أنت هبليه ما أنت لراد وفيلم سكسي مثلا تانكلا سكسي تانكلا واللسبيان تانكلا وجايو رجع دبدا لو بب هاي وربال إلما هذا الرجال رجع وين بان أنا أقول هذا يا داير على سويا كابتن أيوب كارلا يو شينا علي يو وين إلك عساقي سوي سجل في جسوك صوغ على يو جيب جود ووا شبكات ربعيني يوم كوجون حلاش هذا بش يلعب يوتيوب كسر عسا أوبادته سوما كرم لكن ده كده وضياش أيو أرجو يا لا هذه القفقة وحلوسه جود بينا يا وجان ويا وحن لو وضع وحي فائدة أوليهين ده إسمه بدالي أنا والله قصنا لقى بلعبة ما أنت وحنا كوالنا تملين يتأتى كنا والبنا وأردنا عينو مال دلوش نجا قليم يسوع
haddii aad nacaydaan haddaad naaflagaadaysaan anigu intaasaan idin wadnaa Soomaaliya kale inagu kala wada YouTube-ka subscribe saara sidoo kale muuqaalka like gareeya oo share gareeyo la wadaaga saxaabtina fikri aragti waxaad ka qabtaan muuqaalka xaq hoose markaas inuu rab awlaar ku saamay hawo soconaysa hawshu anuna waa bariiseynina waraad wad baasantii